marka waxa ka cabsi jirta ma dhaca cabsida waa cabsin jiray sababta waxa dhahay maxaa kala kulmi doontaa maxaa sameyn doontaa waan ku faraxsanahay maanta in reer Soomaaliyeed oo muslim ah oo Soomaali ah inaan ahaadana maxay igula talin lahayd ama maxay igu bedeli lahayd maro aad midawado yusuf tabadi duniti midbaan saad ka daalacay anigu doorto laabtu doontee hamarka deeqdo deynba waaye anigu doorto laabtu doontee marka deeqdo deynba waaye ودوقيو وبحدلاعي ودوقيو وبحدلاعي وقدائي ضرور إلا عدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه سلام أصحاب ميل والبعد جبتان كسور وازنا الكي كاتريس باديو كسور نقصونا أحسن عادي اللي كوجا حيسي يا سلامتين أصحابتي أنا ما كسر دوكا كشكتين يا كسور دارنا أنت مخالك لا تعصب يا أنا مو بدجيرة long time yeah we are back after long time نعد عبانك هسه كسو أركتين حن ففاهن أكبر حربنا فرخي ودحية نولشين إن شاء الله يتنمان تموه ما شاء الله وحوال بستيب إليهين وحي شالي مذو أهان جري ما أنتو حنقنا عدان وحي شالي أتكاي جري ما أنتو حنقنا جلاء تاس عكس جد وحوال بنا ساسو اسكو دب مركران موه فعلا يا ما ويدين كرتا وحول بو اسبدل ومعناها شال عني أنا مركا كلنا إلا هذا اوكي ابي سؤال مهرسة ويدينا waxay tahay noloshaada maalinta aad ku soo diiray iyo shalay maxaa farqi u dhaxeeya يا أنا أنتي شالي إيمان تسكو مت معها شالي سنجل أهاي لكن ما أنت الحمد لله إن قف حاصلة ما شاء الله وإلهي اسك بركي dad oo jacayl ku xiran yihiin oo kaal iska arag ah nolosha shalay inta marka la isku barbar dhigo farqi weyn u dhaxeeyo cariid ma jiro tan buuq ma jiro deganaan kaal iska arag farxad ma sha Allah ilaahay noo siiyay ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah ya wax badan iska bedelahay ya macnaha waxa dareemay makse ina oo adiga marka hore walaas oo jiray aan ka cabsi jiray mustaqbalka soo socdo macnaha tusaale ahaan iyo noqon doona qofka guursan lahayd iyo noqon doona qofka mustaqbalka la wadaagi lahayd haddii qof ugu horeeya mustaqbalka la wadaagtana noloshaas ay noqonaysaa su'aalahaas oo dhan macnaha mar walba isweydiin jiray su'aalahaas oo dhan macnaha mar walba maskaxdayda ku guuxi jirta taasoo aan jawaab u haynin sababtoo waxa dhici doona moogtaa laakiin ya waxa ogaay in macnaha haddii ya إلهي مركز هذا الثلاثة أسعارتي ساجع عشان أنا هليس. أوكي. So هذا مركز هو. شالي نولش هذا إيمان تسيتها. حفرق وده. رنانتي نلسي بالسلة سينجل ماذا حتى هرتا اسكمت معها تير كلاتنا وحبين اسكبد السنة نلسي ذا نوفر حسنا هاي إن نأخذ مرو هذه dhankaaga man isdheheenin maanta murdiina noqonayo ninkaagii ama xaajigaagu noqon doonaa isma dheheenin alxamdulilah shukr bilcaalamiin ilaah waa mahad celinaya aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan noqono lamaana aad u qurux badan famil qurux badan run ahaantii wax walba waxa waaye kala qurux badan yihiin shalay maanta aniga maanta ii qurux badan tahay nolosha maanta aan ku jiro waa mid yani aan laga sheekeyn karin okay intaas jooj hal su'aal kale igu soo dhacay su'aasha kale igu soo dhacay waxaa mataqaanaa shalay marka ani go'aansanaysay inaan ani is guursano macnaha wax baqtin ee ma kaaga jirta ama ka cabsanaysay waxa gadaal ay dhici doonaan macnaha wajiga isku baran ma ahne bedelkiisa inay imaan doonto ma ka baqaysa horta waxaa lama filaan ay ugu noqotay waxaas dhaha qofku markaa wanaagiisa aragtid waxaas leedahay beri amuu isbedelaa run ahaantii nuurdiin shalay iyo maanta horta tii shalay aniga ogahay
t-shirt iyo tamaanta waxay tahay mid aad u qurux badan oo aad u baleeran so labadaba laisma barbar dhigi karo marka isku mid ma aha soo marka waxaa ka cabsan jirta ma dhaca cabsida waa cabsan jiray sababta waxaa dhahay maxaa kala kulmi doontaa maxaa sameyn doontaa mid dambe ilaah tala saartay inuu ilaahay ila kulantiinin wax dhibaato oo ka imaanin wax isbedel isbedel kama arkin soo ilaahay talada soo ka dhigi marka saartimiya masikadad macnaha waxaa ka cabsanaysa ma dhacay ma dhicin waxaa ka cabsanaysa ma dhicmo waxaa rabtaa dhaca ya adiga waa marka murdin baby su-aasha labaad ku weydiina waxay tahay run ahaantii ani dhankeyga maxaa iska dhahaysay inaa maadaama aa noqday qofkii aad guursatay oo maanta xaaskaaga ah maxaa is dhahaysaa tiriisada maxaa kala kulmi doontaa ma guursan doontaa maxaad si ka arki karta walaahi maantii markii ani aan go-aansanaya inaa adig ku guursado age cusub aan furaya mogtahay mar walba qofkan go-aan oo gaarayo go-aankaas cabsi waa ku jirtaa calaashaan go-aanka aan gaaraysa daadhow waxa ka dambeeya ma ogid ama macnaha wax walba isbedelaan adi cabsi waa ku jirtay laakiin alxamdulilah go-aamada qaar markaa gaartid waxay ku tusaa mataqaanaa nafsadaada go-aan markaa u gaartid inays hadday khaldan yihataa in qof go-aan leh aad tahay ay ku tusayaan saas waxaa kala wadaa markaa adig oo ani go-aansan inaa adig oo ku guursado maasha allah cabsi way ku jirtay ama maxaa dhici doono maxaa ka dambeyn doono maxaa isbedeli doono see wax noqon doonaan nolosha ma isbedeli doontaa ya waxaasoo dhan ka cabsanaya ya wixii dhici doon maadaama aan ogeyna cabsiga kugu jiraysa maaho alxamdulilah laakiin waxaa ka cabsanaya maba dhicinba wixii cagsigiisa dhacay ya maasha allah waan ku faraxsanaa maanta in reer soomaaliyeed oo muslim ah oo soomaali ah inaan ah haddana masha allah hadda maxaa rajeynaysaa wallaahi ani waxaa rajeynaa in macnaha nolosheena maanta see tahay si kasii fiican inay noqoto haddii si kasii fiican la heli waayana sideeda un inay ahaato insha allah sidaan si ka fiican liin jiray waa helaynaa insha allah waxay u baahan yihiin ducada haddii aan ducada badsano wax naga halaabayo ma lahan dad duceysana waa nahna sababta ah waalidkeeni dadkeeni asxaabteeni nagu xiran markasta way noo duceeyaan maasha allah horta taas been ma aha alxamdulilah dadkeena way noo duceeyaan maasha allah waalidkeyga si kuwa saaida noogu duceeyaan kuway iska wadaab maasha allah markasta wayna garab taagan yihiin ya so saas darteed maadaama aday qof duceysan weligiis maliyaca mana quusi doono okay hadda ani ahaanteyda maxaad ugula talin lahayd aniga adi ahaan nolosha hadda aan kuwada jirno waxaa kula talin lahay maxay igula talin lahayd ama maxay iga bedeli lahayd ani horta wax makaa bedeli lahayn laakiin hal mid waa kaa celin lahay maxaa hal mid waa kaa celin lahay oo midaasoo ah calaashaan horan mar walba kugu sheegay ma jecli inaa adoo murugsa inaan ku arko bas intaas haddii aa heligoa intaas haddaa helo adoo mar walba faraxsan oo murugsanin haddaa arko ya sababta asiga maasha allah aad umahadsan tahay sababtoo ah intaan isguursanin ilaa iyo abtinaha waxay jecel yahay inaan mar kasta aan u faraxsanaado oo yacni murugna aysan iga muuqanin ilaa horta waxaa ku dhaca ma aqaanin so marka anigana insha allah waxaan rajeynayaa nolosheena in ay noqoto mid aad u sareysa insha allah biidnillahi kariim oo ilaahay naga dhigo kuwii isku maaraa oo isku duqooba isduuga ilaahay hanaga dhigo insha allah amiin amiin hal mid kaleeta waxaa rabna inaan u sheegno dadka anaga nagu xiran oo maasha allah oo maanta na garab taagan mar walba na taageero maasha allah waa aragne 80% markii Soomaaliya dadka anaga nagu xiran markii la barbar oo sameynayo macnaha qiimeen 85% anaga waan jecel yihiin 15 as heres oo arkaysno macnaha oo attack uga ah oo
لازم تاس waxba dabiici ma waaye arko. Sababta ah waxaa la dhahaa bilku jecel boqol muxuu kaa qaadaa. saas waaye like qof walba oo macnaha maanta heer sare gaaro cadow oo yeelna qasab baa mugtaa maadaama hoose cadow oo yeelnayna haddii maanta aad cadow aan lahayn wax ma tihid Si fiican. Ah. Een, mucaarad inaa lahayd qasab waaye ayaga adiga wax hadda kaa markaa dhigaan 10 oo ku jecel markaa haystid maybe waxaa arkaysaa 5 4 2 oo ku nacab intaas waxba buu aragna sababta ah intana jecel oo mar walba na soo raadisa na dhiirigelisa oo haddana waalidkeena ku jira maxaa ka qurux badan yaa Wax ka intaas qurux aan badan ugu ma filan lahan. So mar walba waxaa qurux badan inaa waalidkeena aan ka duceysano waalidkeena haddii nala jiraan ducadeedan na garab taagan tahay dad maanta oo na waxeynaysa ma jirto sababta ah waxaaba haysanaa Soomaali weyn oo dhan oo na jecel maanta haddii idinkaana jecesiin anaga wax ma naga haleysano taas waaye so anaga waxaa dhigaynaa dadka anaga oo na nacabne maxaa dhigaynaa anaga makasay jecel anaga ni jecel saas oo taa laakiin waa idin jecelnahay iska nacbanaada anaga waa iska jecel anaga qofda dhan ma nacno ha ood maxaa daarus oziha Kutu ku subscribe para wale garsiyo hata. Ojeedi waa kana subscribe kutu ku wale garsiyo. willi Ilaahay ilaa maxaa kinta biskalaab saan loo raadiya marka asxaabe horta waxaan rabaa inaan ii mahad celiyo sababta ah waxaa arkay dad badan oo ii soo duceeyeen oo isoo raadiyeen maasha Allah qof la jecel yahay la raadsadaa iidan loo duceeyaa maasha Allah alxamdulillah xogaa waa fiicanahay ilaa mahad iskale xanuunkan dimi dhaaf ilaahay ha noogu dhigo insha Allah xanuun qaar qaban ilaah ka dhig insha Allah marka waa mahadsantihiin dhammaantiina hay baby maxaa leedahay asxaabteyda yes so ujeediin yaa xogaa video yar oo iska gaaban oo iska qurux badan oo macnaha idinka inala jeclaanay ahayd idinka idinku talgalin videogan so ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan aad daawateen Kutu ku muuqaalkan subscribe wale garsiyo kutu ku narawa ane. muuqaalka xigay intaan ku kulmi doono waxaa idinka tegaynaa sidaas iyo bye bye